سوي ده أهل الدين وي لكن هل عذر ما يسكدين كرتان نين كان أدور ما يسان ما يسكدين كرتان نين كان عن وحبي سواهين وضه الله يسان مجوجين كرتان نين بعد وضه كل ما يسوي كل عرورتي كورها بالعرورتها نين كان مدلين وأبتي أمها ويدو أمها وأدير أمها محوك وريسان يا عرورتها معلم ما هو شيطان wuxuu leeyahay ninkii ka waran markaas leedahay Mareykan buu jiraa hay masruuf ma idin soo diraa marba wax noo soo tuurtuuraan maxaa ku gali adiga waxaan maxaa ku gali ninkaaga iyo masruufkiisa iyo caruurtaada ninkan maxaa galiyay muxuu u yahay asaga wax xaraam weey inaad uga warantid xaraam weey hadhowna waa isgaleysaan oo wuxuu ku leeyahay haddaad caruurta wax u baahato anaa idin ka warqabay shaydaan weey muxuu ka warqabay yaa u dirsaday inuu ka warqabo adiga waxa laga doonayaa ninkan aad is wareysanaysaan joojiye nin Jazaa'iriya gabar Soomaaliya London ku guursaday nin baa Mareykan ka soo wacay gabadhii Jazaa'iriyiintu waa dad dib badan oo qalafsan hal saac buu la hadlayay Mareykanka telefoonadu waa free wuxuu yiri ninkan kula hadlayay maxaad isu tihiin qaraabaan nahay beet qaraab xaqee ku arkay la wada hadlayo wiilka yaani aad wiilka ku geeya isma wareysan kartaan مسألة نوجاد إذنك ومسألة شرعية ويل كان وحي كل هذا وين أذيركي وين أبتجي الماء ذير بانه روب بان سكور يسرنا وحي هذا روب مدعي ريركي ماشي مكجورين حاجات دجن ريركي روب كان ياخد درس هذه الجكدة يا سريرته يا عرورته يا أذا كان كقبة يا بورشنا كريسال قدر يا روب كودر هذه نبات عنا هي ستعنك qofkii mu'minada ahay way niqaaban tahay maanta oo nin bay la waramaysaa roob bay iska wareysanayaan ninkeedii bay uga waramaysaa caruurteedii bay uga waramaysaa shaydaankan caruurta xaq muxuu u yahay nabiga kaleey salaatu salaam wuxuu yiri yaani ninka walaalkiis waa ninka walaalkii nin qof uga dhow ma garanaysaan waa geeri buu yiri nabiga kaleey salaatu salaam naam hooyada hadday ku tiraahdo ninka fur hadduu dahab yahay waa furaysaa hadduu ninka nin ugu fiican yahay hooyada hadday ku tiraahdo fur ninkan adduunka hal hooyaad ku leedahay iyo malyan nin oo ku guursan kara iska fur ninka haddii hooyadaa fur ku tidhi waa jeclahay waa nin fiican caruur buu iga dhalay ma jirayso hooyaday waa xun tahay hooyaday waa fiican tahay ma jirto hooyadaa fur ma ku tiri ninka fur ka tag aabbaha fur ma ku yiri waa la eegin warkiisa waa lagu noqonayaa asaga سيدا شيخ عبد العزيز بن باز با فدنوداي waxa fadwooday ibn Uthaymin hooyo haday ninkan ka ta ku tirada waad ka tagaysaa wuxuu rabaa hada malaa'ika ahaado ma fahamteen warkaas ay xijaabka iyo hadii lagu marka meeshii hadda lama joogo ka soo hadii aabay hooyo meesha ay joogaan aadan tagi karin oo diintaada aadan ku badbaadsan karinin asalku waa in diinta la badbaadiyo daruuriyaadka shanta waad garanaysaan ayagana ilaahay sukiinsa ururiyo الله يسكين كانوا نعم waxaa igu jira xaasid oo waxbarashada ii diiday waxaa igu jira xaasid waxbarashada ii diiday xaasid xaqu kaaga jira wax kugu jira mal quraan baad akhrisataa shanta waqtaad tukataa caajis baa ku haya nabiga ducadiisa allahumma inni a'uudu bika min al-hammi wal-hazan wa a'uudu bika min al-'ajz wal-kasal wa a'uudu bika min al-jubn wal-bukhl wa a'uudu bika min ghalabati ad-dayn wa qahri ar-rijal دعاء النبي أخرس عليه الصلاة والسلام دقيسته قبله دقيسته مسلمات دقيسته وحبذنا وايد الله جنبا يجره سحر با يجره إلبا يجرته حاسد وحكو يجره ماله وحن وواحد أركيسد ومسكح ذا جن ما قبتد إل ما قبتد سحر ما قبتد حسد ما قبتد إلهي قفكو حرم باطهي وحكو يجره ماله وسواسك إسكسر إلهي إسكحر إلهي سبحانه وتعالى إسكحر إلهي هداد إسكحرتد qof wax ku dhimaya ma jiro meelahan hadda la furto jinka lagu saaro waa wadaad baahday oo sidii dumarka uga qaadan lahaayeen ku fikiray jin clinic baa la furtay qofkii dumarka aad markay u tagto hadda gabdhaha islaamka hadda tirada jin ma qabtaan kullaha bay dhahayaan marka jin ma qabtaan yaan leedin dhihin jin baa qabtaa iyo sixir baa qabtaa iyo il baa qabtaa ana idin sheegin waxa ma qabtaan ilaahay isku xira subhanahu wa ta'ala ilaahay isku xira quraan in lagu akhriyo ma u baahan tahay adigu isku akhri culimada markay ka hadlayaan suuratul faatiha wallahi haddaad ikhlaas u akhridid toddoba goor isku akhridid suuratul faatiha
oo jirkaaga marisid siduu ibnulqayim leeyahay anoon dawaafi karin buu yidhi baan isku akhriyey suuraddaas oo niyadda isaga akhriyey saacaddiiba xanuun iigu dambaysay buu hiya shaafiya hiya alkaafiya hiya umu lqur'aan sabc almathani walqur'aan alcadiim suurad la mida ilaahay ma soo dejin suuraddaa yarta oo suuratu alfaatixa markaad seexanaysid 7 goor isku akhri xanuun dambe isku arki maysid jin isku arki maysid sixir isku arki maysid il isku arki maysid in sha allahu tacaala aabahayna 20 ilmood iyo carruur badan buu dhalay maxaan yeelaa wareeray aabaheed bay ka timid aabaheed in muddo haysay hay oo cadha hadda way ka soo tagtay wiilkeedii oo carruur leh bay u timi isagana dayac oo rafaadsan tii u qabay aabahay markaa aabahay tii carruurtan ashaaw ma ahay sheegine waa dayac dee kulley ma joogto wax dayac leeyaha ma jiraan odaygaas ku dhalay un wiilkan iyo naagtiisa ayaga isku filane adigu duqaas un cadka ah rogrog haddaan dad kala jirin haddii dad kala jiraan oo walaalo ah wiilal gabdho way badan yihiin 20 bay gaarayaan arrin u baahan weeye sheekh waa joogaa sheekh maxamed oo imow sheekh maxamed idriis oo imow u sheeg warkaaga nacam madrasa baan dhigtaa caado markaan qabo mobilka ma ka akhrin karaa waad ka akhrin kartaa qur-aanka akhri markaad caado qabtid mobilka ka akhrisa qur-aanka maaragtay ka akhrisa qur-aanka nusuusta arrimaha ku soo arooray gabadhan anigu ma rabo hadda inaan tafaasiil galo madhabka islii ka socda anigu ma aqaano ma degani laakiin anigu xataa waxaan idin dhihi lahaa musxafka xataa qabtaan idin dhihi lahaa aniga saasaan idin dhihi lahaa laakiin madhabkeenna islii culimmadiinna islii waraysta laakiin mas'aladan adilo looma hayo gabadhan caadada qabtaa shaydaan ma aha shaydaan ma aha diintana kama bixinin haddii hadda aad tiraahdo qur-aanka musxafka ma taabanayana wax badan oo khayraad samayn kartaa culummada qaarna way diideen qaarna way ogolaadeen adigu haddaana khaldanayn sheekh naasir wuxuu leeyahay qur-aanka way akhrin kartaa soo ma sheekh naasiruddiin alalbani wuxuu leeyahay musxafka way akhrin kartaa marka haddaad dhibsanaysid salaadiina waa lagaa reebay soonkii waa lagaa reebay qur-aankii waa lagaa reebay 100 khayroo kalaad samayn kartaa 100 arrimahaasna waxbana iyo ha ku dadaalinina go-aan wada jira inaad qaadataane qof kasta oo go-aankaad ku qanacsan tahay ku soco insha allah salaad ayaan ku jiraa hurda ay qabatay ma ka baxaa mise waa wataa dhammaystir salaada salaada dhammaystir hurdada la dirir salaada markaad dhammaysid seexo sharciga islaamka muxuu ka qabaa naag gaala ah inay masaaj u samayso gabar muslimada culimmadan dambe hadda way banneeyeen yani qofka dumarka oo gaalada ah maaragtay laakiin cawradaada oo dhan ma arki karto meelaha un yani ay kaa arki karto qofka mu'minadda inay xishootaa la rabaa yani waxay leedahay diinta islaamka maxay ka qabtaa haweeney gaala ah inay masaaj garayso masaajka horta sidiisaba maalin hore kitaab yaroo laga qoraan akhrinay midna waa mid daawo lagugu qoray kaa masaaj lama yidhaahdo soomaalidu daliig bay dhahaan daliiggu waa mid lagugu qoray takhtar baa kuu qoray dhabarkaa ku xanuunaya xubin baa lagaa hayaa daliigga waa laguu samayn karaa midkan raaxada ah oo gaaladu ay ku masaaj garaynayaan culimmadu aaraa kala duwan bay risaalooyin laga qorana waan arkay waxaa fiican in qof dumar oo muslima ay kuu samayso midda kale dumarkii muslimkaaba wada furtay meel kasta ka furtay masaaj dumarkii muslimka ayaa furtay meel kasta ayaga u tag ayagaa xishoonaya adigana ka xishoonaysa laakiin gaaladu xishoodba ma leh gaaladu xishood ma leh anigaa idinla hadlaaya xanuunka qoortaan qabi jiray weligay diskiska qoorta ayaa C5 iyo C6 ayaa idurkay xididkii bay taabanayaan qofku marka shil gaari oon galay dartiis marka xididku markuu taabto qofkii wuxuu noqonayaa qof suuxo oo kale marka gaalada markaa u tagtid oo tiraahdid ha lagu daliilo dharka dhan bix bay ku dhahayaan ha yeelinina marka dharka dhan ma bixin kara dhani qof muslimaan ahayde way aqbalayaan markaas wixii markaa meesha la daliigayo unbay kaa taabanayaan inta kale jirkaaga waa asturi kartaa asturka ku dadaala asturka waxyaalo waxaa jira dhaqankeenna runtii hadda anigu eed kuma lihidin baan idin leeyahay laakiin dhaqankeenna arrimahaas ajnabiga hataa waxaa arkaysaa qof dumara inay gaal ka dhaliyo ay raalli ku tahay nin gaal ah ama nin gaala ay takhtar ka dhigato iyadoo la helayo dumar ama gaalo ama islaama arrimaha ma bannaana sharcan ma bannaana adoo helaysid qof muslim oo dumara
ama xataa haddii la waayana qof haweenay gaalad ah inaad nin takhtar ka dhigatid markaad umulaysid ama markaa uurka leedahay iyo ma bannaana sharcan ma bannaana maaragta allah idin barakeeyo waa la yimid masaajidka raggii way yimaadeen cimro laguma leh xajna laguma leh dhegaysta gabdhow dhegaysta warkan dhegaysta haddii aadan maxram haysan xajkaad aadaysid dembi baad ka ziyaadsanaysaa cumradaad aadaysid dembi baad ka ziyaadsanaysaa lagugumaba lehba xadiidkii dubaacata binti zubayr ibnu cabdilmuطalib oo xanuunsatay xadiid alishtiraaط fi اlxaj ya rasuula اllahi inii imra'aة caliilaة wainii uriidu اlxaj qaala xijii washtariطii waqul illaahuma maxalii xayثu xabastanii adoo nairobi jooga waxaad tidhahdaa ilaahu maxram waa waaye ajarkayga xajkayga nairobi ilaahu igu sii waad ku helaysaa laakiin nin islaameed baad raacaysaa oo hadhow dhexda ku dhegaysaa oo hadhow ku dawaafinaya dembi baad ka ziyaadsanaysaa xaj laguguma leh cumrana laguguma leh haddaadan maxram haysan